بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرتشرفتا xildhibaanada musharaxiinta kaamiramanada iyo dhamaan ka soo qaybgalayaasha xalfadan quruxda badan ee aad ku sareysa loo soo agaasimay kana dhacaysa hoolka weyn ee jaamacadda SIU campuskeeda kilometer 4 waxaa meeshan ku tartamaysa ilaa waxa waaye afar xisbina waxay kala yihiin Hunting and Gathering, Agropastoralism, Agro Revolution, Green Revolution iyo Biotechnology. Dhamaan waxaa ka soo baxday ama u tartamaysa ilaa iyo afar musharax waxayna kala yihiin Ahmed Ali Umar, Ali Hashi Ahmed, Aisha Abdurrashid Abdullahi, Yusuf Abdullahi Mohamed. intaan u gudagalin xalfadeena ama doorashadeena intaan u gudagalin waxaan ku furfurnaynaa aayadaha Quraanka Kariimka waxaana inoo akhrin doona Cabdiraxmaan Maxamuud Salaad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والشاكرين آيات القرآن الكريم كوحيد دافروها ين حلفدنا الدرشة قدوميها أرضنا كلية بيرها هاتن وحن أجريا public relation جعادة SIU أحمد هادي وحنجعل الله إن الله سود ويسان تندور وناكسن سلامته وحربينا قبل أبو دينك كلية ده أستاذ عبد الكريم قدوميها مدوغا أرضنا جامعة ده أستاذ عبد الخالق حبناها كلا قدية أرضنا كتير سنة مدوغا أرضنا قدية دورشة dhamaan qof kastoo marti sharaf oo inta jooga iyo ardada kuliyada agriculture dhamaantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. salaan kadib runtii aniga waxay tahay farxad gaar ah maanta inaan arko kuliyada agriculture oo intan soo timid oo hadda teamskii la aqriyo ama xisbiyaashii la aqriyo magacayaal aad u waaweyn weeyaan inkastoo ahayn dadka agriculture iyo beeraha aad iyo cilmiga la xiriira ku takhasusay ama faham xitaa ka haysta faham xitaa basic kama haysto laakiin magacayaashaas magacayaal historiga agriculture marka loo laabto macno weyn ka sameynaya human meesha ka soo bilowday ilaa hadda inta la joogo ayay soo koobaysaa kuliyadan asaaskeedii iyo inay saldhigato iyo inaad maanta intan soo timaadaan oo maaragtay aan noqotaan kuliyad jaamacadda ka shidan oo dynamic ah iga raalaha hadaan luqadii dhalinyarada isticmaalay luqa kuliyad culus inay noqoto waxa qayb weyn ka qaatay oo soo kiciye kuliyadan oo runtii maaragtay sheeg anu public relations kana marka public relations ka hayna shaqooyinka weyn qabto waxa kamid ah inay jaamacadda iyo iskuulada iyo ardada isku xir laakiin waxa rabaa maanta inaan idinku baaqayntaan anu afartooda midna aqoonin ha ku bays gareenin inuu saaxiibka yahay waxyaabaha aan bartay waxa kamid ah qofa saaxiibatiin maanta u codaysay laakiin maanta dareemaysa laakiin mustaqbalka dheer qofkeedan saaxiibaha laakiin hawlkarka ayaa ka fiican waxaan kula talin qofka hawlkarka oo qiimaha leh oo ogtihiin inuu wax qaban karo oo maaragtay saameyn u yeelan karo kuliyad kale وكليات كلا ماركتي كلية وديسي كرا وترتسي كرا ومعمول كلا شقين كرا إن الدورتان عندي كلها تنليا رنتي آدي هذا وما سنتين جد جنا وحن رجينا يا ماركتي إن الدورشة حرة إن كسانو بدنا الدورشة حال حلال ناسي مركا هذا وما سنتين أنت هاي دقيقتين thank you very much. قدوميها أرضيدا جامعة SIU عبد الخالق محمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي. دينك كلية مدح public relation كمعلمين كلية دمان مشرحين أرددا حلبانا ده معان قرا عضينا يه قد الدور شوين ك دمانتين السلام عليكم مرة بعد. وحي مهمة يو دور الشدة loo soo agaasimo Ustaad Axmed Hadiya ka hadlay laakiin waxaan rabaa aniga inaan idin sheego
musharaxiinta inaan hal kelmad u sheego ardadan inaan hal kelmad u sheego musharaxiinta waxaan rabaa inaan hal kelmad u sheego ah dardaaran oo ah musharaxiinay haddii ilaahay idmo haddii uu jiro nin aad ku midaysantihiin aad aaminsantihiin marka laga soo tago dhinaca tartanka aad aaminsantihiin inuu kuliyadda meelaha ustaad qaasima soo waday meeshii qaasimkan inuu kasii wadi karo aad isku raacsantihiin hadduu jiro waxba tartan hana gelinine wax waa isaga aan u codayna naloo sheego haddii uu ardadana waxaan rabaa inaan u sheego sidii ustaad axmed cabdi haddi sheegay ardayga kugu kuliyadda ah ama ugu galaas ama waa saaxiib waxba ha ugu codayn maanta sababtaan kuu sheegaa aniga markaan tartanka galayay rag badan aa garbahayga ahaayeen oo maxaan ku rahdaa waxay ugu jiraan ay loobin garaynayeen haddana maanta raggaas meel kuma sheego waxa aan meel ku sheegaa waa dadkii shaqaduna dhex martay waa qaasim waa ninka leeraa samadoon waa cabdiweli oo gadaasheeda fadhiya tiimkaasaan maanta meel ku sheega ayagaan aqaanaa marka sidaas darteed ninka aad maanta u loobin garaynayso berri meel kuguma sheegi doono waxaad noo doortaa qofka annaga haddaan nahay agriculture haddaan nahay qofka waxna taraya noo door insha allahu tacaala sidaas darteed marka qof kasta oo musharaxa xildhibaana mas-uuliyaddaa saaran mas-uuliyadda ku saaran waxay tahay tartanka markii la galo 4 beri ka bacdi wixii tartanaha waa dhammaadeen wax reality-ga loo gudbaya waxaan rabaa xilka markii la qabto marka hore wax badan aa kuu muuqda laakiin markii la qabto wax reality-ga aad arkaysaa wax saxda marka waxaad arkaysaa aad xilka qabato sababta waxa weeyaan waxa la tacaamulaysaa hawlaha ku hor yaala culayska ay leeyihiin aa kuu muuqanaysa marka insha Allah qofkii anaga qofkii kamid ahaan qofkii guuleystaan la shaqaynaynaa waxaan rabaa inaan hal mar dib ugu laabto nidaamka doorashada waa nidaam aan aaminsanahay inay xitaa haddii isku dayaan inay nowdkeeda qaataan aan kula tali lahaa qolada xitaa hadda dawladda oo yidhahdeen 2020 guddiga doorashooyinka qaranka aan waxaan dhihi lahaa qaataan marka nowdkaas anaguna haddii ilaahay insha Allah waxaan isku dayaynaa inaan apply gareyno madaxweynaadkeena inta ka dhiman inaan taakiidino aan ku shaqeyno doorashada soo socota ee midowga ardada inaan ka dhigno qaab asxaab inaan ka dhigno hadii sababtana waa kuu sheegaa qaab asxaab haddaan laga dhigin ardadii waxaa ku dhacday kuliyadihii macnaha caadifada dhex martay hadda su'aal xamdiya ka hadlay kuliyad markay sanad qabato kuliyadaha kale oo dhan haddii xitaa ay bad iyo ay sameeyeen waxaan ku raadin mahadi hadday sameeyeen waxa la leeyahay war kuliyadan mar dambe yisi ku soo laaban waa caadifad macnaha kuliyada tartan kuliyada dhexdooda marka waxaan rabnaa doorashadu inay tartan kuliyadad noqon tartan galaas noqon ay noqoto yaa wax qabo kara ilaahay mid wax qabo kara noo soo saaro amaana Allah insha Allah markuu soo baxo hadii ilaahay inta kamid ahaan kaalintan ka qaadayna amaana Allah insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan jeclaan lahaa inaan hadda u yeero mid kamid ah musharaxiinta Axmed Cali Cumar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان وحن سلامة يا متى شرفت كسو قيب قشي كلن كان حيسها يا حماسة له ووجه الريو هذا قيبته بيرليد أستاذ عبد الكريم داير عبدي قاسم نور بابا سوكل وحن سلامة يا دمان كسو قيب قلياشة أنا جو مجيء أحمد علي عمر وحين عدينا يا مروين يا مدن يال إن أنا أتاجنا هاي قبشة حلكة قدوميها أرض كلية بيرها أرض كلية بيرها يدعان كجامعة إسحايو هذا كهذا لو عقبت كي أنت نسود جنا هاي كلية بيرها جامعة كلية بيرها يدعان كجامعة إسحايو وحكم إذا أرض ذيك قيب قشي أسبوع رقمات كي لبض كون يتمنى يتضبط إيه قبت جامعة إسحايو كاس هاد مركي يجوه إذا أنك قيب قلنا أسبوع رقمات جامعة قبنا يسو مركز أنقلني كالنت كواد annagoo markaas aan ahayn ardayar isku xirnaanshaheennanu aad u fiicnaa markaas aan ku matalayay booska dhuxulaha una marsaday inaan dhuxul marsado una gaarsiiyo guul kuliyadeeda beeraha iyo deegaanka jeclaan aan qabo haddana aan jeclahay inaan sidoo kale guul gaarsiiyo wax badanna u qabto sidoo kale waxaan ka mid ahaa 2018kii ardayda ka qayb qaadatay asbuuca dhaqanka ayadoo aan sameynay practical yar waqti yarna qaadanay saasi taana guul weyn ka soo hoynay aadna ugu hambalyeena ardayda aan ka wada qayb qaadanay kuna wada faraxnay kaalintii aan ka galnay ee kaalinta saddexaad sidoo kale waxaan wax ka soo qayb qaatay ima 2 sano xiriir kala shaqeynayay gudoomiyaha hadda xilka ka dagay gudoomiye Qaasim Nuur Baabe aan kala shaqeynayay si hufnaan iyo si daacadnimo kula dhaahantay aan 2 sano ula shaqeynayay anoo markaas jeclaa in horumarka aan ka wada shaqeyno kuliyadda haddaan u soo gudbo wax qabadyada aan jeclahay in aan qabto hadii aad ii doorataan mudanayaal iyo marweyn xilka aan maanta aan codsanayo in ay doorataan hadii noqoto mideeda koowaad inaan u soo saarayo kuliyadda haduu Ilaahay idmo calendar sax ah ay ku dheefi doonaan semester wanada cusub si ay u helaan maadooyin saxiixa ay qaadanayaan ilaa ay ka baxayaan jaamacadda dheefna ay u noqon doonto ilaa ay wixii ka dambeeya sidoo kale inaan ku dadaali doono nidaamka iska dhexgalka ardayda
sida ha noqoto sportiska iyo ha noqoto maxaa la yidhahdaa aqoon kororsiga sidoo kale inaan ku dadaali doono sidaan wada ogsoonnahay ardayda kulliyadda beeraha iyo deegaanka waxaan xiisadaheena qaadanaa wixii ka dambeeya duhurka inaan ku dadaali doono anoo la kaashanaya kulliyadda madaxdeeda ustaad cabdikariim iyo jaamacadda inaysan xiisadaheenu ka soo hormarin waqtiga duhurka haddaad ii doorataan xilka arrintaasna waa ku dadaalayaa sidoo kale inaan abuuri doono qasnaji ima kayd uu yaala doono kulliyadda si aan ugu tabaabushayno waqtiyada adag aan ugu fakanno qasnajigaas inaan hil iyo hooba la istaagi doono ima u dhaqaaqi doono soo dhammaynta beer u khaas ah kulliyadda anoo la kaashanaya madaxda kulliyadda iyo jaamacadda sidoo kale waxaan ku dadaali doonaa siminaaro joogto ah oo lagu kordhinayo waxbarashadeenna bilay asbuucba wixii doonaanba ha noqdaan inaan ku dadaali doono sidoo kale inaan dhammayn doonaa allah hadduu ka raali noqdo library ima meel maktabad u gaar ah agriculture-ka inkastoo aysan lahayn library-gaas hadda agriculture-ka iyo jaamacaddu ay leedahay library laakiin waxaan jaamacadda insha Allah ugala dadaali doonaa sidii loo heli lahaa bugaag agriculture library-geeda mudanayaal iyo marwooyin saddexdan qodob aan isku raacno si aan hadafkeena u wada gaarno waa saddexda qodob ugu dambaysa khudbadeeda mideeda koowaad kuna qorneed kuna aragteen boorkeyga waa iskaashi aan midowno garbaheenu hasinaadaan iyo isdhaafin ul yadiirna aan noqono wada tashi aan wada hadalna aan wada heshiino gacmo wada jir bay wax ku gooyaan hormar markaad i doorataan ima codkiina aad ii hibaysaan ayaan guul wada gaarinaya hormar mudanayaal iyo marwooyin waxaa cod dheer iyo cod gaabanba inkaga codsanayaa si inaad codkiina ii hibaysaan sidaan mowqifka iyo hadafyadeena u wada gaarno asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan u yeerayaa musharax cali xaashi axmed waxaan idinku salaamayaa salaan midda ugu qiimaha iyo qaayaha badan dhammaan maamulka marti sharafta macallimiinta xildhibaanada beeryaqaanada ee maanta halkan codkooda ka dhiibanaya iyo howlwadeennada doorashada sida wanaagsan ay u wadaan barnaamijka waqtiga ay u horeen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cali xaashi axmed waxaan u taaganahay qabashada xilka guddoomiyaha kulliyadda beeraha iyo deegaanka ka cali xaashi ahaan aan u taagnaade waxqabadkayga haddaan waxaan kaga sheego wixii aan soo qabtay kulliyadda beeraha waxaan ku soo biiray 9 bishii 9aad 2017 galaaska hadda waxaan ahay galaaska semester 3ga maalinkaas aan ku soo biiray galaaska waxaan noqday gaab galaaskii semester 3ga ilaa maantana xilkii waan u hayaa galaaskaas waxqabadkayga intaan galaaskaas soo qabanayay wax isku dhaca ama galaaskaas oo ka imaaday ma jiraan wuxuu leeyahay kala dambeyn isku xirnaan wuxuu leeyahay akoon maaliyadeed wuxuu leeyahay dhan kasta wuu ka dhisan yahay marka insha Allah maantana anoo og dhibaato culayska uu leeyahay xilkaani waxaa igu kalifayay inaan u soo istaago si aan kulliyadda ula tartansiiyo kulliyadaha kale waxaan kalsooni ku qabaa naftayda oo waxaan hubaa inaan gaarsiin karo mudanayaal iyo marweyn haddaad i doorataan waxqabadkayga waxaan ka socdaa xisbiga biotechnology mar labaad iyo mar saddexaad waxaan salaamayaa dhammaan xisbiyada kulliyadda shanta xisbi ee kulliyadda oo kala ahaantan gathering agropastoralism agrorevolution green revolution iyo biotechnology waxaan dhisi doonaa guddi ka kooban dhammaan xisbiyada kulliyadda waxaan xiriir dhow iyo xiriir dheer la yeelan doonaa maamulka ardayda macallimiinta kulliyadda waxaan tixgeli doonaa talooyinka anigoo tusaaleynaya qof kasta ayaan tixgeli doonaa waxaan horkici doonaa habsami socodka horumarka waxbarashada kulliyadda waxaan falankeeda qaban doonaa sidaan ku heli lahayn fildi ama xarun tijaabo aan ku samaysano oo ka baxsan xarunteena meelaha afgooya ama meelaha lagu dhiro oo aan ka heli karno sidaan uga heli lahayn si aan u samayno wax soo saar badan oo ay ardaydeena semester 8 uga sameeyaan research waxaan la socon doonaa dhammaan duruufaha ardayda ayaan la socon doonaa waxaan xoojin doonaa xiriirka noo dhaxeeya dhammaan xiriirka noo dhaxeeya cid kasta oo nagu xeeran ay ugu horeeyaan ururka midowga ardayda ururka midowga jaamacadda unionka
iyo ururada ka shaqeeya beeraha oo maanta noo martiya sida ururka saaya saaga iyo udbis waxaan samayn doonaa tartan aqooneed u dhaxeeya ardayda tartan kubadda cagta isdhexgalka bulshada ayaan samayn doonaa waxaan qaban doonaa seminaaro ku saabsan seminaaro ku saabsan xirfadda iyo aqoonta ardayga kor lagu qaadayo gaar ahaan ardayda semester 1-nada waxaan u horseedi doonaa ardayda kulliyadda hannaan toosan hogaamin wanaagsan iyo horsocod dhan walba waxaan si mug iyo miisaan leh idinku shaqay doonaa siday ardaydu ku heli lahaayeen waxbarasho dibadda ah internship kulliyadeennu ma leh balse anigoo la kaashanaya maamulka mas-uuliyiinta jaamacadda dhammaan cid kasta oo naga caawin karta mudanayaal iyo marweyn haddaad codkiina isiisaan waxaan ka shaqayn doonaa bilicda xarunteenna iyagoo anigoo abuuri doona ubaxyada lagu qurxiyo jardiimada taasi oo turjumaysa in aan nahay kulliyadda beeraha iyo deegaanka mudanayaal iyo marweyn waxaan ka shaqay doonaa xalinta khilaafaadka ardayda macallimiinta hadday ahaan lahaayeen dhammaantood mudanayaal iyo marweyn waxaan samayn doonaa shir shanbilo ah oo looga hadli doono muhiimadda beeraha shirkaas oo ay nagala soo qayb doonaan dhammaan mudanayaal iyo marweyn waxaan gacmo furan ku soo dhawaynayaa ardayda cusub ee semester 1-nada mudanayaal iyo marweyn waxaan ka saacidi doonaa ardayda semester 1-nada siday ku heli lahaayeen baraatika joogto ah annagoo u xiri doona sidaan ognahay dirib waxaan wax ku waraabsanna maantay dirib irrigation nooma xirra marka waxaan xiri doonaa waraabka casriga diribka ama sprinkiga diribka ayaan xiri doonaa insha allah waxaan ka saacidaynaa mudanayaal iyo marweyn gunti iyo ganaanudkii waan ku dheereeyey gunti iyo ganaanudkii mudanayaal iyo marweyn haddii aad idi doorataan waxaan guntii iyo ganaanudkii mudanayaal iyo marweyn waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina ii siisaan si shuruud la'aan mudanayaal iyo marweyn waxaa sharaf ii ah idaan idin soo hor istaago si aan u gaarsiiyo kulliyadda horumar iyo hoggaan wanaagsan insha allah ballanteennu waqtiga oo gaaban awgiis inta ayaan kusoo gabagabeynaa maasantii musharaxad caaisha cabdirashiid cabdalla alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marweyn dhammaan marti sharafta macallimiinta maamulka jaamacadda ardayda iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladan waad mahadsantihiin dan magacaygu waa caaisha cabdirashiid cabdulaahi waxaan ka mid ahay musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha ardayda kuliyadda beeraha anigoo og inuu culus yahay xilkaas haddana waxaan ku qanacsanahay diyaarna u ahay qabashada xilkaas iyo inaan si daacada ugu shaqeeyo ardayda haddii alla igu guuleeyo insha allah ugu horeyn waxaan ka tirsanahay aniga ardayda kuliyadda beeraha khaasatan ardayda fasalka semester 3 waxyaabahan soo qabtay nafsad ahaanteeda haddaan ka hadlo waxaa ka mid ah ani horta waxaan kusoo biiray jaamacaddan bishii 9aad ee sanadkan inay tahan jeclahay 17 maqan I don't know saas ay tahay waxaan soo sameeyey fasalkan xelal badan aan kasoo qabtay waan ku guuleystay waxaan kaloo wada shaqayn la soo sameeyey maamulka kuliyadda alxamdulilah asina waan ku guuleystay sidaas daraaddeed haddana waxaan ku qanacsanahay anigoo gabar ah una taaganahay kuna dhiiranaaday kuna kalsoonahay nafsadeyda inaan qaban karo xilkaas waxaan aaminsanahay xil inuu yahay wax adag uusa ahayn wax wiil iyo gabar kale leh wax loo kala fariisan karana uusa ahayn mar walibana muhiimadda ay tahay qofka khibradda iyo kartida iyo aqoonta u leh inuu mar waliba xaqa u leeyahay intaas kadib waxaan aad u soo dhaweynayaa fasalka nagu cusub ee nagu soo biiray sanadkan semester 1-nada ardayda semester 1-nada waxaan leeyahay ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada niyad furan ku soo dhawaada arday idin jecel oo walaalihiina oo ku faraxsan kuna qanacsan ku soo biiritaankeena sidoo kale waxaan sagootinayaa ardaydii ugu horeysay ee jaamacadda kuliyadda beeraha qalin jebisay ee sanadkan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin in badan
waxaan leeyahay waxaad noo tihiin waddadii aan raaci lahayn berri ilaa iyo haatanna aan ku socono waddada haddii aad adinku noo guulaysatiin waddo toosan aad noo furtiin waxaan balan inkaga qaadaynaa anakana inaa waddadii aad noo furteen si toosa ugu soconno inaan kasii saro marna maahana inaana ka gadaal marin soo daad waxaa loo baahan yahay inaadna adinkees niyad jabinin oodna dhihin kuliyadda beerahaan dhiganay saanaan dhahnay macnaha wax badanaa soomaalida ay ka aaminsan yihiin kuliyadda beeraha ma ahan sida saxda kuleyba waad iiga aqoon badantiin waadna taqaanin kuliyadaha maanta Soomaaliya laga barto qaasatan kuliyadaha jaamacaddan laga barto waxa ugu muhiimsan oo ugu tayada wanaagsan uguna dhiinka wanaagsan uguna baraatikada fiican waa kuliyadda beeraha waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa maamulka macallimiinta jaamacadda sida wanaagsan ee noo soo garab istaageen oo ay noogu talagaleen oo ay noo siiyaan baraatika aad u wanaagsan oo ay nooga dhigeen hormuudka kuliyadaha Ustaad Abdikariin Deere waad mahadsantahay in badan sidoo kale xafiiska jaamacadda asina wuu mahadsan yahay dan inta sadaan soo dhaafo waqtiga ay hayo awgiis haddii aan aniga waxaan ahay maanta musharax u taagan xilka inuu qabtana diyaar u ah haddii aad i doorataan koleyba qof waliba nafsadiisa waxay ku qanacsan tahay ama uu isleeyahay qofkaas uu ku hogaamin karaa uu sameynaya waxaan diyaar u ahay aniga inaan qabto haddii xilkaas la ii dhiibo oo aan ku guulaysto ugu horeyn waxaan ka shaqayn doonaa isdhexgalka ardayda semester 1 ilaa iyo semesterka u dambeeya u samayn doono tartanmo sida kubadda cagta sida tartanka aqoonta sida tartanka wax soo saarka si ay isku dhex galaan intaas iyo waxyaabo la mid ah waxaan ka shaqayn doonaa ama ballan qaad inaan fasal waliba uu heli doono baraatika ku filan iyo xuquuq waliba uu ku leeyahay kuliyaddan ama jaamacadda waxaan kaloo ka shaqayn doonaa inaan idiin sameeyo hababka casriga ah ee wax soo saarka beeraha sida greenhouse drip irrigation iyo waxyaabo kaloo la mid ah waayo waxaan leenahay beer aad u wanaagsan waxyaabo badan looga soo shaqeeyay nafaqadeeda aad u wanaagsan tahay kaliya waxa naga maqan waxa waaye qalabkii aan ku isticmaali lahayn beertaan haddaan maanta maal gashano oo qalabkaas aan helno annagoo baraatika ahaan ku qaadanoono waxaan soo saari karnaa adiga muqdisho degmooyinkeeda degmo ka mid ah dadkooda waan qoodin karnaa sidaan aaminsanahay insha Allah sidoo kale waxaan ka shaqayn doonaa xiriirka u dhaxeeya xafiiska kuliyadda iyo ardayda waxaan ka shaqayn doonaa sida ardayda kuliyadeena ay u heli lahaayeen library u qaas ah oo ay ku dhameystiran yihiin buugaagta kuliyadda beeraha si ay mar waliba dhiirin ugu noqoto oo u dhiiradaan oo u ogaadaan kuliyadda ugu wanaagsan dunida inay baranayaan waxaan kaloo ka shaqayn doonaa inaan u sameeyo ardayda beeraha baraatikada qaadanayaan dhar qaas u ah oo loogu talagalay xilliga baraatikada ay qaadanayaan si ay u soo gaarin sunta iyo waxyaabaha beeraha loo isticmaalayo oo qofka nafsadiisa uu badbaadiyo calaamadna ay u noqoto inay kuliyadda beeraha ay yihiin ardaydaas baraatikada qaadanaysa waad mahadsantihiin haatanna waxaan ku soo dhaweynayaa musharaxa ugu dambeeya yuusuf cabdulaahi maxamed marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka taasoo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa ugu horreyn u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala allahaasoo ina garadsiiyey hadafkeenna wuxuu yahay iyo meesha aynu hiigsanayno mahadda labaad waxaa siinayaa hurmuudka kuliyadda beeraha mudane cabdikariin deer cabdi kaasoo si adag barnaamijkan u soo abaabulay u soo qabtay inuu qabsoomo holka quruxda badan maanta mahadda saddexaad waxaa siinayaa guddoomiyihii hore beeraha mudane qaasim nuur boobe oo si dhabar adeeg ah hagar la'aani u heliso u soo qabanqaabiyey barnaamijkan quruxda badan ee doorashada mahadda afaraad waxaa siinayaa dhammaan barofesoorada marti sharafta xildhibaanada ku sugan hoolkan quruxda badan kuwaasoo u soo huray wakhtigooda qaaliga ah
waqtigooda qaaliga ah ujeedkoodu ama hadafkooduna yahay inay magacoodaan guddoomiyaha ardayda kuliyadda beeraha. waxaa kaloo halkan ka salaamayaa guddoomiyaha ardayda guud jaamacadda SIU cabdiqaaliq maxamed maxamuud. mudanayaal iyo marweyn, waxaan ahay musharax u taagan xilka guddoomiyenimo ardayda kuliyadda beeraha iyo deegaanka jaamacadda SIU anigoo ah musharax yuusuf cabdulaahi maxamed. waxaa idin ballan qaadayaa inaan idin fuliyo shuruudaha soo socdo, laakiin haddaa xilkan ii doorataan. kow, inaan qaban doono tartamo kala duwan, tartan aqooneed tartamo u dhexeeyo 5 gruub ee ka dhisan kuliyadda si loo helo xafiiltan ka dhexdhaco kuliyadda dhexdeeda, taasoo noo horseedayso inay kubacdo aqoonta ardayga iyo waaya aragnimadiisa. 2, waxaa kaloo meesha ka marnayn in aan samayn doono xul u tartamo kuliyadda, xulkaasoo laga dhex xuli doono 5 gruub ee kuliyadda ka dhisan annagoo wajahayno jaamacadaha kale ee magaalada ku yaal. 3, sidoo kale waxaan qaban doonaa tartamo kubadda cagta ah, tartamadaasoo ka duwan kuwii sanadka hore noo qabsoome. 4, waxaa kaloo meesha ka marnayn inaan samayn doono xul rasmi ah u leedahay kuliyadda beeraha, xulkaasoo oo ballan qaadi doono isbuucii mar ama 2 inay training ku samayn doonaan garoomada ku yaala magaalada. intaasoo dhan wiilasha tartamadaas ka qayb galaayo, gabdhaha waxay ka midaysan yihiin uun aqoonta iyo waxaaseeto inay kala soo galaan. gabdhaha tartankooda waxaa waaye aan u qaban doono tartan cuno karis ah. maasha allah, tartan cuno karis maadaama beeraleeyihiin. waxaa kaloo idin ballan qaadayaa inuusan jiri doonin arday ama ardayad dhex wareegta xafiisyada jaamacadda kala duwan oo aan fududeyn doono wax walba ay uga baahdaan xafiisyadaas. waxaa kaloo ballanqaad u sameynaya ardayda sanadkan ugu soo biirtay semester 1 ah. waxaan idin leeyahay mar koowaad ku soo dhawaada, mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada kuliyadda beeraha iyo deegaanka jaamacadda SIU. waxaa idinku wareejin doonaa filliga ku yaala beerta saa ugu samaysiin practical joogto ah, waxaana la wareegi doontiin insha allah annagoo idin casriyeynayno waraabkiisa, shaqadiisa, wax walbo maamulkiisii waxaa la wareegi doontaan insha allah wax soo saarkiisa. anagoo waqtigeyga fiirsanayo, waqtigana aad igugu yaryahay, waxaa idinku dhiirigelinayaa inaan codkiina u fiirinin saaxiibtinimo, ka galaasnimo iyo wixii la mid ah aad u fiirisaan yaa ka soo bixi kara xilkan adag. ugu dambayn waxaan idin leeyahay xilku waa meerto, laakiin howlkarnimadu meerto ma aha, taasoo aan ula jeedo xilku inuu yahay wax shakhsi waliba loo dhiiban karo, laakiin waajibkiisa laga soo baxo in laga soo baxo ay aad u adag tahay, shakhsi walba awoodi karin. mudanayaal iyo marweyn, rabitaankiinu waa rabitaankaygu. u dooro hogaamiyaha qofka aad waxqabad ka filayso. in adeerayaalow, qoordhe, xiraalow, xigtii, xigaalow, codkiina ha khasaarinina, ninkii u qalma siiya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. haatan waxaan soo dhaweynaynaa mid ka mid ah muraayadaha kuliyadda beeraha, Professor Axmed Cilmi Warfaa. ila soo dhaweeyay. waxaa ka muuqda ardaydaydii oo xoogaa mudday soo ka dambeysay, waa la waaweynaaday dadka qaar maasha allah. ya waxaa soo gala in gadaashay xataa hooyooyin iyo aabbayaal ay maaragtay dadkii qaar isu dallaceen. ya maasha allah. alxamdulilah, ilaah waan iskale nagu kulmiyey halkan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wajiyadan dhallinyarada ah oo runtii maantana waa maalin maaragtay khaasaba oo dadku waxaad moodaa ogaa training yacni waxaa loo qaadanaya malaha siyaasadda mustaqbalka. ya maasha allah, wax fiican. waxaan aad kaga mahad celinayaa muddadii dheerayd malaha 4 semester miya ayaan maaragtay wada joognay, dhowr maadaan u dhigay ardada kala duwan. qadartu waa iska garanaysaan, bini aadamku maaragtay hadba meel buu joogaa. marka ilaahi wuxuu qadaray inaan xoogaa maaragtay hawlo kala galo. siyaasad maaha laakiin ya siyaasad ma gelin, xoogaa hawlo kale. marka aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaya wada shaqayntii fiicnayd, dadaalkii.
xogaa marmarna dee waa jiraan confrontation iska caadi soo ma taasina waa iska jirtay waxaan idinkula dardaarmayaa runtii inaad waqtiga ka faa'iidaysataan muddo yaro hadda aad 4 sano aad jaamacadda joogtaan aad hadafkiinni maarata ka miro dhalisaan insha allah dadaalku ma yara laakiin sometimes waxaad moodaa xoogaa dadku inay xoogaa luminayaan maaragtay hadafka xoogaa ay ka yara weecanayaan waxay asbaab fara badan oo asbaab waddan ku jira ay ugu horeeyaan marka insha allahu tacaala waxaan idin rajaynayaa persistence in adkaysi in maarata lagu sugnaado cagaar dhulka lagu hayo insha allahu tacaala 4 sano waqti aad u yar insha allahu never drop out inaan la samaynin wax weynna waa laydinka filayaa insha allah wax aad iyo aad u weyn ayaa laydinka filayaa waxaad garanaysaan idinkuba marka insha allah waxaan idin rajaynayaa guulaysta insha allahu tacaala ilaahayna maarata ku dadaal inaad ku xirnaataan sababtoo ah qofku wuxuu qiimo ku leeyahay hadba maarata inta alla uu ku xiran yahay haddaad allah ku xirnaato wax fara badan baa kuu fududaanaya ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi waman yattaqi allaha yajcal lahu makhrajan yani ilaahay subxana wa taala meel walba makhraj buu ku yani meel aad dhibaato kasta meel aad uga baxdo ayaad helaysaa marka ilaahay maarata in lagu xirnaado qofka in badan goolku kama lumo haddii uu maarata alla ku xiran yahay oo noloshiisa dhan waxay yeelataa maarata nolol schedule ayay noqotaa haddii kale waxay noqotaa nolol iska khariban oo maalin maarata madaxa oo meel ku dhufanay maalin dhexaasa waxaa dhacday ardada ka hor hadda ka hor waxaan oran jiray marka aad madax noqotaan oo xafiisyada aan idinku nimaadno ood wax noo howl fududaysaan markaasaa waxaan dareemi doonaa dhididkii faraha badnaa moogteen infact way dhacday maalin dhexaasa wasaaradda waxbarashadaan tegey yar wiil aan arday ahay baan sorry aan abti u ahay aan shahaado u samaynay marka xafiiska markaan soo galay arday ka mida jaamacadda city kuwii hadda dhameeyey oo gabaroo ka shaqaynaysaa meesha kala kulmay hadda miiskaa laga kacay markii wixii aan laga kala tuur maasha allah marka runtii macalinimada waa wax qiimo badan oo waxaad yeelanaysaa network aad iyo aad maarata aad u ballaaran kolley xusuus fiican ayaan anigu runtii ka xasuustaa jaamacadda SIU waa kuliyaddii u horreysay oo aan shaqo ka bilaabo galaaskii u horreeyey oo wax u dhigan waxay ahaayeen batch 2 batch 2 soo ma hadda qaar ka mid halkaana farfadhiyaan maasha allah marka maasha allah marka insha allah intaan laguma kala tegin waxaan idin rajaynayaa sana hadalkayga maarata anuu kusoo celinaya in aan laga leexan marar fara badan 4 sano inaysan kugu imaan waxyaaba badan baa iska yimaado oo dhallinyaradu maarata ay sameeyaan inaan la googoyn hadafku inuu iska caddaado inaad loo faa'iidaysta insha allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan noo guddoonsiin doonaa al-ustaad cabdikariin dayr cabdi oo ah hormuudka kuliyadda beeraha iyo al-ustaad suhayb cilmi dhuxulow oo ah madaxa finansiga jaamacadda SIU ila soo dhaweey fadlan بسم الله الرحمن الرحيم وما هسنتين دمانتين وقت نوما هارين مركو بعد وحنو مهد علنا يا دمان مشرحين ته سيدو كله وحنو مهد علنا يا حلبان هذا سيدو كله مرتي شرفت نقص قيب قشي برامج كدورة كذا وحن لا هي سؤال واحد دمانتين ما أنت ومعنى قيم بدن كنتينا أن جعلنا هنا نصوص عرنا كده جنا قفكي كلية ده هاجي لها أو أقل مئة muhiimada koowaad waxay tahay inaad fiiriso qofkaan ma yahay qof kuliyadii hagi karo marka waxay marba inaan hadalka badiyo waxaan isla wadaagaynaa oo bas qaabkii ay u dhici lahayd doorashada iyo nidaamkii aan ugu talagalnay inay u dhacdo waxa sharaxan 4 musharax oo ka socota 4 xisbi waxaan rabnaa marka 4taas musharax qofkii ugu haboona adinka soo saari doontiin oo xildhibaan ah annaka ma soo saari doono in aan laba wareeg bas amarno labada wareeg sida saxda ah xildhibaanada meesha jooga oo soo xaadiray ayaa waxay yihiin 91 markii laba loo qaybiyo oo lagu daray hal haddii ay ku guuleysto xisbiga macnaha musharaxa ka soo ku guuleysto qofkaas wareeg labaad ma u bixi doona anag waxaan rabnaa marka haddii ay taas dhici weyso oo ay dhici weyso in 50% soo bixi weyso ee 4 musharaxba ay helaan codad qaarba nooc yahay waxaan rabnaa inay ogaataan si aan waqtigu noogu badan waxaan geli doonaa wareeg labaad wareegaas labaad waxa u soo gudbi doona
labada musharax oo ugu codka sareyso tiro kasta ha ku saramaraan labada musharax oo ugu codka sareyso way soo gudbi doonto labada u dambeysana way hari doonaan labadaas soo baxday wareegaas waxa uu noqon doonaa asagana cod dheeri qofka ugu sareeyo xisbiga noqon doona iyo qofkii musharaxa guuleystay waxaan rabnaa marka xildhibaanada waxaan kala dardaarmaynaa waxaad wataa qof kasta wuxuu wataa baaski uu ku soo galay hoolka qof aan wadan ma jiro qof kasta wuu wataa waxaan rabnaa xildhibaanku markuu soo istaago oo magacaaga halkan laga yeeriyo oo stage-kan laga yeeriyo waad soo kacaysaa waxaad u tegi doontaa ninkaas soo ma aragtaan ninkaas aad u tegi doontiin ninkaas baajka aad wadato wuu goyn doonaa qayb ka mid uu goyn doonaa taas waxay ka dhigan tahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo codayn doonto ama ku soo laaban doono ama baaj kale bannaan ka yimid ma imaan doono marka wareegga labaad la joogo isla asagaa soo goyn doono wuxuu fiirinayaa haddii laba goyn ay saaran tahay lagaama aqbali doono haddii hal goys ay saaran tahana waxaa waaye waa mid kale labaad lagugu dhufan doonaa ninkaas ku soo xigo wuxuu siin doonaa waraaqda aad ku codaynaysiin waraaqdaas afarta musharax waxaa ku dhegan sawiradooda ku dhegan afarta musharax sawirkooda ku dhegan ninkasta xisbigaaga waa taqaanaa iyo cidda aad u codaynaysid magaciisa iyo sawirkiisa waa saaran yahay sawirka iyo magaca hortooda waxaa ku qoran calaamada saaran gowaabintaas waxaa saari doontaa tig ama calaamada saxda sida u taqaaniin calaamadaas waraaqdii leh waa waraaqda hadhow sida saxda ah tii laba meelood ka calaamadan codkaas waa halaabay ninkaasaa u tegi doontiin wuu soo jari doonaa ninkaasaa soo mari doontaa wuxuu kaa qaadan doonaa waraaqdu ku soo siin doonaa way soo gudbi doontaa bahalkan stagekan oo inta la dhigay baad codkaaga ku soo bixin doontaa sanduuq halkaas yaalla waa ku ridi doontaa waxaana u laabi doontaa qaab oo aysan la rabin in waraaqaas ayadoo aan kala babaxsanayn aad meesha ku samayso tusaalahaan waxaad samayn doontaa waraaqdaada saasaa u laabi doontaa waa feerayn doontaa mar labaad haddana saas u laabi doontaa waa feerayn doontaa ayadoo saasaa sanduuqa ku ridi doontaa okay way noo bilaabanaysaa marka insha allahu annagaa marka waxaan samaynaynaa sanduuqana waa in dhigaynaa waa lain tusi doonaa sanduuq inuu bannaan yahay oon waxba ku jirinin stagekana halkaas aan dhigi doonaa shaqadana waxaan jecelnahay si degdega inaad noo fududaysaan annakuna aan fududayno waa mahadsantihiin cabdulle xildhibaan jamaal cabdinaasir maxamed maxamuud cabdiraxmaan maxamuud axmed cabdiraxmaan maxamuud xasan cali xaashi axmed علي حاشي أحمد علي حاشي أحمد عائشة عبد الرشيد عبد الله أحمد علي عمر علي حاشي أحمد علي حاشي أحمد waxaa ku tartantay kuliyadda afar musharax oo kala hogaaminayay afar xisbi musharaxa koobaad sidii macnaha ay u qornayd stagekii wuxuu ahaa axmed cali cumar musharaxa labaad wuxuu ahaa cali xaashi axmed musharaxadda saddexaad waxay ahayd caysho cabdirashiid cabdulaahi iyo musharaxa afraad oo ah yuusuf cabdulaahi maxamed natiijada soo baxday sidaan ayay noqotay soo socota waxaa codaysay sida saxda ah 85 xildhibaan baa codaysay waxaan rabnaa marka 85 xildhibaan say u kala heleen adinku waa haysataan numbarkii xisaabtii inaad ogaataan marka shuruucdiina aad ku dabaqdaan yuusuf cabdulaahi maxamed xisbigaas musharaxii ka socday wuxuu helay 4 cod okay caysho cabdulaahi cabdirashiid waxay heshay 6 cod أحمد علي عمر وحوها لي لاتني تضوعت وعلي حاشي أحمد وحوها لي أفرتن يسدد عد حاشي وحو نقضي مشرحة دوميها هجامين دونا كلية بيرها سببته وكون نقضي وحيتها هاي أفرتن سديتن يشن أو لا غيب شيء لبا waxaa soo baxaysa 43.5 lagu daray balaas hadii waxay noqonaysaa 44.5 hadaba wuxuu helay 48 marka wuxuu noqday ninka hogaamin doona kuliyadda waa cali xaashi axmed waan ku soo dhaweynaynaa taasna waxay meesha ka saaraysaa
in aan u gudubno wareeg labaad waana mahadsantihiin qaasim nuur boobe waa mid ka mid ah halgamayaashii usoo halgamayay kuliyadda beeraha inay maanta meeshaan taagnaatane isaga ayaa ka dambeeyey wuxuu ahaa arday laakiin uma dhaqmaynin qaab arday ee wuxuu u dhaqmayay qaab guddoomiye xil aad weyn badan ayuu iska saaray qaasim nuur boobe waxyaabaha uu qabtay laguma soo koobi karo halkan wuxuu ahaa iyadoo kuliyadda aysan lagu weyn aysan lahayn ama wax weyn aysan ku tiirsaneen waa ninkii macnaha meeshan ay taaganta gaarsiiyey fadlan mar kale ila soo dhaweeya qaasim nuur boobe الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ugu horreyntii waxaan maaragtay si diiran aan u salaamayaa dadyagoo kala duwan ee isugu yimid halkan oo ugu horeeyo hormuudka kuliyadda beeraha iyo deegaanka jaamacadda SIU Sheekh Cabdikariim Deer Cabdi iyo agaasimaha xafiiska ICT-ga jaamacadda Mudane Bashiir gudoomiyaha ardayda guud ee jaamacadda SIU Mudane Cabdikhaaliq Maxamuud iyo ardada sharafta leh xildhibaanada qaaliga ah oo 3 sano ku dhawaad aan gudoomiyaha u soo ahaa waa ardada kuliyadda beeraha jaamacadda SIU ayagoo isugu jira kaabgalaasyo group leaders iyo xisbiyo dhammaantood qof walba masraxiisa iyo mansabka oo halkan ku fadhiyo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bacda salaam runtii maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko kuliyadda beeraha iyo deegaanka jaamacadda SIU oo qabanaysa doorasho qof iyo cod ah ka duwan doorashooyinka la qabto ugana duwan macno ahaan iyo maamus ahaan taasoo lagu tartamayo qaab axzaab ah 4 galaas oo kuliyaddu leedahay ayaa waxaa laga soo saaray 5 xisbi oo tartamaysa taas macnaheedu waxaa waaye inaan fasal loo tartamin in yacni doorashadan muhiimadda koowaad waxay tahay sidaad ogtihiin cilmiga iyo waxyaabaha waddanka lagu hago waxay ka soo baxaan jaamacadaha doorashadan waxay tusaale weyn u tahay yacni xaaladaha waddanka iyo in waxyaabo badan nalaga daydo qaabka ay xisbiyadu u codeeyeen calamada ay wataan yacni maaragtay kambeynka qaabkay u sameynayaan iyo qaabkay ardu u howlgalaysay runtii aniga waxaan guddoomiye ka soo noqday agriculture 2015 maanto 2018 la maraayona doorashadii maaragtay ardada ayaa dhacaysa oo qof iyo cod ah oo axzaab ah runtii qofku markuu xilka degaayo sida caadiga ah waxaa maaragtay jirta in uu soo diyaarsado documentary ama waxyaabo ka hadlaya waxqabadkiisii qofku markuu madaxda uu xil maaragtay ka degaayo waa saas laakiin cali bin daalib ayaa wuxuu yidhi labo cidnaha sheegin cidnaha u sheegin wanaagaad qabatay ood samaysay ha sheegin xumaan lagugu sameeyana ayada naftirkeedana ha sheegin sidaa daraaddeed anigu waan awooday in aan soo diyaarsado wax allaale waxaan iyagoo facts and figures ah ayaan maaragta hayaa inaan soo bandhigo waxaan ka jeclaystay in wixii wanaag ah oo anigu kuliyadda aan u sameeyey ilaahay khayr ga siiyo wixii xumaan wixii aniga dhibaato iga soo gaaray ama aan la kulmay intaan shaqada ku jirana in maaragtay aan ayadana sheegin sidaa daraaddeed waxaa waaye howlo badan ama marxalado kala duwan oo adagaa lasoo maray ardada kuliyadda inteeda badan waa isla soo wada shaqaynay gacmo isku xiran ayaan ahayn kuliyad ahaan wax walbo oon wada qabanayno ama shaqa haddaan rabno inaan fulino ardada kuliyadda oo dhan baa u istaagi jirtay yar iyo weyn mid walbana waxa uu asagu la diyaar yahay ayuu maaragtay la istaagi jiray kuliyaddeena maamulkeedu ma lahayn anaa guddoomiye ka ahaa guddoomiye ku-xigeen maxaa la leeyahay xogeeye maaliyad waxyaabahaasoo dhan ma lahayn sababtuna waxay ahayd ardada ayaaba mid walba wuxuu ahaa xogeeye mid walba wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeen mid walba meeshuu ka soo gaaro ayuu maaragtay hawsha ka qaban jiray runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ardayda kuliyadda oo aad ila shaqay jirtay xafiisyada jaamacadda oo iyaguna albaabadooda ii furay oo si wanaagsan oo ixtiraam leh oo dadka kale ka duwan igula shaqay jirtay
anugu markaan kuliyadda beeraha guddoomiye ka noqonayay kuliyaddu xafiis may lahayn dhiinna may lahayn macallin agriculturena ma joogin taasoo macnaheedu yahay haddii attendancega galaaska laga soo qaado xafiisaan geysano ma jirin waxaan aad ugu faraxsanahay in uu hadda soo galay agaasimaha diiwaangelinta jaamacadda mudane cabdifataax afyare kaasoo aan dhihi karo runtii shakhsiyaadkii aad ii taageer ayuu ka mid ahaa xilliyadii adkaa fasalkowna markaan kasoo baxeen noogume wuxuu dhihi jiray haye hawshiina say ku dhammaata maanta isagoon dhiinkeenna ahayn sektarkeenna ka tirsanayn ayuu wuxuuna dhihi jiray intay wax idin marayaan marka hadduu soo galay runtii fursaday ii tahay aad iyo aad u mahadsan yahay ustaad cabdifataax sidoo kale waxaan maaragtay halkaan uga mahad celinayaa macallimiinta kala duwan ee kuliyadda shaqaalaha jaamacadda yar iyo weynba sidoo kale waxaan rabaa qof halkan ka maqan inaan u mahad celiyo aadna si shucuur leh aad igula sacbisaan badankiin inaad garanaysiin laga yaabaa waa aasaasihii kuliyadda beeraha mudane doctor cabdiraxmaan jaamac ducaale runtii doctor cabdiraxmaan wuxuu hadda joogaa magaalada hargeysa wuu ila soo xiriiraa wuxuu yiraa ka warrama ciyaalkaygii ardadaydii aan meesha ku ogaa ma samayn kartaa inaad galaaska ina tagto samiicadda ii furto ardada ay dhegaystaan oon la hadlo ka warrama intay wax idin marayaan wuu yiraa anoo xiriirino isagoo doctor ah nin ilaa jaamacadda xataa guddoomiye kasoo noqday jaamacada fara badan kasoo noqday ayuu ina isoo waco ayuu saas yiraa marka isagana waxaan rabaa inaan si gooni ahaan ugu mahad celiyo mudanayaali maryawooyin shaqooyin kala duwan ayaa maaragta na soo dhex maray howlo kala duwan aan isla soo qabanay waxaa laga yaabaa in qaladaad aniga iga dhacay ay jireen oo maaragtay si aan ogeyn anuna mar walba waxaan ku fikri jiray inaan wanaag sameeyo noloshaydana intaan guddoomiyaha kuliyadda aan soo ahaa howl kuliyadda u taal ama fursad u ah haddaan arko cidna kuma hadlay jirin haddii xataa 6 saac oo inimo tahay waxaan isku dayi jiray inaan xalliyo programkaas ustaad cabdikariim aan rabaa inaan masraxa kusoo dhaweeyo safaraan isla galnay dhoobiyaan isla wareegi jirnay webiyaalaan iskula kufi jirnay waxaa waaye dareenka ka muuqda waa ujeedaan ustaad cabdikariim wax kalena ma ahan waa maaragtay yacni waxyaabaha aan isla soo qaban jirnay ustaad cabdikariim aad iyo aad ayuu mahadsan yahay ilaa hadda maan arkin ustaad cabdikariim ilaa hadda maan arkin qof shaqo naga dhexayso ama aan howl isla wadwadno siduu ii ixtiraamayey siduu shaqada iila qabanayay runtii wuxuu ahaa booska waalidkay oo kale ayuu taagnaa runtii waxaan rabaa inaan microfoonka isaga ku wareejiyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan mahad celinayaa marka ugu horeysa qabanqaabada xafladda dadka gacanta ku soo hayay labada guddiga qabanqaabada aan ka xusayo cabdiraxmaan nacnac cabdiraxmaan shalambood xafsa iyo guud ahaan galaaska semester 7ka batch-2ga runtii oo barnaamijkan si gaar iyagu isaga xilqaamay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka oo runtii ilaa saaka dadaal badan ugu jiray hawsha inay si habsami leh u dhacdo waxaanan ilaawi doonin xafiiska ICT-ga oo jaamacaddu ay muddo badan curyaan ka ahayd laakiin marka kan aad moodo jaamacaddu meesha ay ugu shidan tahay inuu yahay xafiiska ICT-ga waxaan nasiib u helay doorashadii ugu xamaasadda badnayd inaan qabanno ugu kaambeynka fiicnayd mid nooceeda oo kale ay ka dhacdo magaalada iyo jaamacaddaba runtii waxay naga caawiyey injineer bashiir xafiiska public relationka ustaad tahliil oo runtii isaga iyo tiimkiisa uu ka mid yahay yacquub oo isaguna mudan in la ammaano loona sacbiyo howlkan quruxda badan aad arkaysaan agaasimay kuraasta dhigay qalabka materialka waxaan u baahanahay inoo keenay intaa haddaan hambalyo kaga soo laabto qaasim nuur boobe iyo tiimkiisu waxay hayeen dad haliyeeye ah runtii jaamacadda inaan ka shaqeeyo iyagaa sabab u ahaa kuliyadda semester 1 iyagoo abaan u yimid muddo bil ah qiyaastii ayay jaamacadda joogeen waxay ku samreeyeen macallimiin la'aan waxay ku samreeyeen maamul la'aan
guushaas qaasim keliya ma laha waxaa leh ardadiisa fasalka la dhiganaysay dhammaan magacyadooda kama soo gaboobayo laakiin tiimkii semester 1ka xilligaas ahaa waxay ahayn dadka sababay maanta kuliyadda in xitaa semester 5ka ay bedel noogu yimaadaan fasalladan kalena ay kuliyadda joogaan ee dhismaan guud ahaan hal mar halayla soo dhaweeyo galaaska semester 7ka batch 2 agri dadku waxay yidhaahdaan kuliyadda beeraha waxaa horumariyey ustaad cabdikariin waxba kama jiraan waxaas kuliyadda beeraha waqtiga ugu yar baan joogaa waqtiga ugu yarna waan geliyaa bale waxaa laygu eedayn karaa inaan dibdhaceeda sabab u ahay laakiin horumarka kuliyaddaas waxaa iska leh ardada iyo macallimiinta oo inagala joogo ustaad suldaan waxaad ogtihiin kuliyadda xiisadaha ugu yar baan ka dhigaa contributionka ugu yarna anaa geliya laakiin macallimiinta kuliyadda runtii waa dad haliyeeya ah waxay shaqeeyaan xilli ay shaqooyinka caadiga ka soo rawaxeen gelinkii dambe duhurkii kadib waxaan sabirkooda aan aad ula yaabay runtii ardada kuliyadda qaarkood laga yaabo iyagoo shaqo ka yimid ama culays kala saaran yahay inay jaamacadda yimaadaan oo daraasadooda dhigtaan waxaa halkan inala jooga arday ustaad cabdifataax afyare oo ah dynamiga jaamacadda ardaygii ugu horreeyeyna diiwaan geliyey kuliyadda beeraha ustaad cabdifataax hal mar halayla soo dhaweeyo aniga shucuurtaydu ma fiicna intaa ka badan ma sii hadli karo qaasim wuxuu yahay ilaahay abaal ha ka siiyo inaan ammaano muhiim xigmad ma keenayso inaan ammaano waan u ducaynaynaa waxaan leenahay waalidkii ku soo barbaariyey ilaahay xasanaad ha ka siiyo waxyaabahan ilaa weyn waxaa ka mid a weligii qaasim iguma afcelin aniga ma garan karo waxaan malaynayaa inay tahay xafladdan intii igu dambeysay aan ka qayb galo gudoomiyaha xilka qabanaya waxaan leeyahay ardada masaakiinta ah ee codkooda ku siiyey mala yacni codka ha u qaadanin waxaan leenahay waajibkaaga gudo shaqaa ku sugaysa aan noqonin qof jilicsan oo go'aankiisuna jilicsan yahay qaasim wuxuu qaataa go'aano aanan ogeyn doorashada isagaa soo qaban qaabiya hadeer laakiin go'aan baa lagaaga baahan yahay haddaad madax noqonayso 3 baa lagu noqdaa madax go'aan adag gacan furan iyo guddoon cadaalad ah haddaadan cadaalad lahayn go'aankaaguna jilicsan yahay waad fashilmaysaa waxba noqonaysa waa la faraxsan yahay gadaal waad arkaysaan ardadii runtii shucuurtooda aad bay u fiican tahay maasha allah jawigoo dhan baa bedelan salaadii casar baa waqtigeeda la dhaafay aniga waxaa laga yaabaa tan inay noqoto dardaarankayga ugu dambeysay kuliyadda kolley waxaan laga yaabaa inaanan muddo badan kusii raagin waxaan idiin rajaynayaa guul khaasatan guddoomiyaha la doortay iyo saaxiibadiisba qofna lagama guulaysan guul ayaan leeyahay isahay family dhammaantiin ayaa ardada guud ahaan kuliyadda beeraha semester 7 semester 5 semester 3 semester 1 ustaad cabdikariim waxaan guddoonsiinaynaa oo anigu matalaya aan siinaa shahaado sharaf oo ku muteystay qaabkii wanaagsanaa iyo waqtiguuna geliyey iyo maaragtay shaqadii oo nala soo qabtay runtii aad ii u mahadsan yahay shahaado sharaftaas ayaan maaragtay guddoonsiinaynaa soo dhawaada anigoo magaceena ku hadlaya oo idinka idin matalaya shahaadadana waxaa bixisay ardada kuliyadda beeraha ee jaamacadda isaa'iil abaalmarintaydu way ka qaalisan tahay ta ardada warqad maaha abaalmarinta waxa weeyaan mid runtii ay aad u qaalisan tahay oo tilmaamaysa shaqadiisa iyo hawlkarnimadiisa waxa weeyaan waa tankii weeye macnaheedu hadduu tuu gurigiisa usoo dhaco wuxuu moodayaa diamond it's not diamond waxa weeyaan waa bahalka caadiga ah waa quraarad ama myrar laakiin qaabka ay u samaysan tahay ayaa qaab aad u qurux badan waxaan rajaynaynaa inuu xasuusan doono carruurtiisa iyo waxa tarantiisa tafiirtiisa inuu siin doono idinkuna aad markhaati ka noqotaan ninkaas inuu yahay nin hawlkar ah 3 sano kuliyaddan usoo dagaalamayey marketingkeeda ka qayb qaatay ku dhafrayey waad arkaysaan bidhaantiisu say isu beddeshay waxaasna waxa weeye siduu xitaa isku xidh u samayn lahaa doorashadaas ay u dhici lahayd abaalkiisa ilaahay baa siin kara waxaan leeyahay guddoon
ila soo dhaweysaan musharaxii kaalinta labaad galay Axmed Cali Cumar ila soo dhaweysaan jaalada aadaan ugu mahadsantihiin intii dooratay iyo inta ay dooranba aad baan ugu mahad celinayaa kullee gar laba nin kama wada qoslisee nin bii ka qoslisay aadaan ugu hambaleynaa walaalkay marna saaxiibkay marna aan bahwadaaganaha beeraleyda Cali Xaashi Axmed food cadde sidoo kale waxaan u mahad celinayaa labada musharax oo kale ayaguna sidoo kale aan nahay ragga aan guuleysan aan jecelnahay laakiin markasta inaan garab taagno saaxiibkeen Cali Xaashi ayagana aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan ayagana xildhibaanadana sidoo kale ayagana aad baan ayagan ugu hambalyeynaya waa mahadsantihiin sidoo kale qabanqaabiyaasha iyo brotokoolka dhammaan dadka soo agaasimay doorashadan quruxda badan aad ayagana mahad celinaya wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aadan kugu mahad celinaynaa intaan gudoomiyaha u dhiibin waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo dhaweeyo laba gabdhood oo dhigtaan kuliyadda beeraha ayaan Axmed Jaamac iyo Ikraan Cabdiqaadir Maxamed si ay meeshan tixyar oo goobiyar noogu akhriyaan barbaartii beeraha boqoradii SAU bartan loogu baaqo lala baratamayne been looma heeso been بلاش لهم هذاقو بلاش نحلي لهم باقي وبربارتي بيرا بقرة يسايو برطان لوغو بيقو لا برتمين أحمد وهليو هليه علي باكا دعينو وبربارتي بيرا بقرة يسايو برطان لوغو باقو لا برتمين عشان أستاذ مر أستان يوسف باكا دعينو وبربارتي بيرا بقرة يسايو برطان لوغو باقو لا برتمين ayaan Axmed Jaamac Ikraan Cabdiqaadir Maxamed oo halkan heesiro aad u qurux badan ee u soo diyaariyay musharaxiinta waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo dhaweeyno gudoomiyaheena cusub Cali Xaashi Axmed iskale loo suurto galiyay inay noo soo gabagabowdo xafladeeni si qurux badan ay noogu dhacdo runtii haddaan nahay musharaxiinta ma aanan kala guuleysan ee waa wada guuleysanay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa Axmed Cali Cumar Yuusuf Cabdullaahi Joosto iyo Caaisha Cabdirashiid runtii waxaan leeyahay maanan kala guuleysan ee waa wada guuleysanay waana isla joognaa waana wada shaqay doonaa asxaabta aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh sida wanaagsan ay codkooda u dhiibteen runtii waxaan wada nahay barbaartii beeraha sida sheegan Ikraan iyo ayaanba ayaan wada nahay marka runtii shucuurteyda ma soo koobi karo aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa guddiga doorashada Qaasim Boobe ayaan hilmaami doonin runtii wuxuu mudan yahay in taalo loo dhiso ninkaas taalo in loo dhiso ayuu mudan yahay waxaan leenahay kuma hilmaami doono ma gaari doono oo wuxuu qaban jiray Qaasim ma qaban karno balse waan jilayna waa matalayna ma qaban karno Qaasim runtii ninka wanaagsan lama saaxiibin mana baran Qaasim wuxuu ahaa nin wanaagsan ammaantiisa ma soo koobi karo haddaan 2 maalin wado iyo 3 maalin marka waxaan leeyahay Qaasim jiro joog kuliyadu kuma hilmaami doonto taala ayaana ku dhisi doonaa insha Allah marka aad iyo aad ayuu mahadsantiin adinkuna